wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Cumaan Badar al-Busaydi wuxuu waraysi u siiyay majalada The Economist lagu magacaabo. wuxuu si adag uu kaga hadlay dagaalka Iiraan lagu qaaday, marxaladaha uu ku dambeyn karayo iyo in Israa'iil dagaalkan danteeda uu ku jiro. dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Mareykanka oo isku dhinacay dowladda Iiraan ayaa wuxuu galayaa marxalad aad u xasaasisan. waxaana dadka qaarkii isweydiinayaan haddii xaaladda toddobaad sidan ay sii ahaato, marxaladda xigta sidee ayay noqonaysaa? ma laga yaabaa faraha inuu ka baxo dagaalka? wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Cumaan wuxuu yiri marka waa wax caadi ah in warbaahinta iyo siyaasiyiinta reer galbeedka laga maqlo xog ka duwan waxaan kuu sheegayo. wuxuu sheegay in dagaalkan uusan ahayn mid lama filaan ah, balse wuxuu yiri wuxuu ahaa mid la saadaalin karay, gaar ahaan marka loo eego sida dowladda Iiraan ay kaga jawaabto weerarada lagu soo qaado. inkasta uu cambaareeyo weerarada dowladda Iiraan ay ku bartilmaameysatay saldhigyada Mareykanka iyo xarumaha shidaalka ee dalalka Khaliijka, haddana wuxuu tilmaamay jawaabtaasi inay ahayd mid mar walba la filan karay, isla markaana qalad weyn uu galay Mareykanka isagoo u maleynaya dowladda Iiraan inaanay si adag u jawaabi karinin. waraysiga gaarka ah oo uu bixiyay ayaa waxa uu si gaar ahaaneed ugu xusay marka in dalalka Khaliijka hadda ay wajahayaan xaqiiqo cusub oo halisa, gaar ahaan saldhigyada Mareykanka ee ku yaala dalalkooda. maxaa yeelay markii hore waxay u arkayeen saldhigyadaasi in amnigooda ay damaanad qaadi karayaan, laakiin hadda waxay arrintaas isu bedeshay buu yiri culays iyo khatar toos ah oo ku wajahan ammaankooda qaranka, taasoo micnuhu yahay in dalalkaasi ay noqdeen goob dagaal oo toosa, taasi oo dhaawacaysa sawirkii ahaa in dalalka Khaliijka ay ahaayeen goob ammaana oo ku habboon ganacsiga, maalgashiga iyo horumarinta. wuxuu sidoo kale ku eedeeyay Israa'iil inay Mareykanka ku soo riixday dagaalkan, isagoo xusay in Israa'iil ay ku qancisay maamulka madaxweyne Trump in Iiraan ay tahay dal daciifa oo ay daaliyeen cunaqabataynta iyo weeraradii isdabajoogga ahaa, sida daraaddeedna ay jirto fursad lagu burburin karayo gebi ahaanba nidaamka dowladda Iiraan. hase yeeshee xisaabtaasi way qaldaneed buu yiri, wuxuuna si cad u sheegay in aragtidaasi qaldan ay keentay in Mareykanka iyo Israa'iil ilaa iminka aysan ku guulaysan danihii ay lahaayeen. wuxuuna intaas sii raaciyay inaysan ku guulaysan doonin xitaa yoolkooda rasmiga ah marka la eego dagaalka. sidoo kalena waxa uu ka hadlay haddii dagaalkan uu sii socdo in gobolka uu dhan uu geli doono marxalad burbur oo aad u adag, isla markaana ay adkaan doonto in la xakameeyo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka xitaa mustaqbalka dhow. sidaa daraaddeed waxa uu yiri waa in dowladaha Khaliijka si gaar ahaaneed ay u eegaan buu yiri dagaalka soconaya. mar uu ka hadlayay xalka, waxa uu soo jeediyay laba wado oo muhiim ah oo uu sheegay dagaalka in lagu soo gabagabayn karo. waa tan koowaade in dib loo bilaabo wadahadaladii diblomaasiyadeed, isagoo xusay inay horey u jireen fursado lagu gaari karayo heshiis, isla markaana Iiraan ay muujisay diyaargarow iyo dabacsanaan. waxa kale oo uu sheegay in Cumaan iyo dalalka Khaliijka door muhiim ay ka ciyaari karayaan dhexdhexaadintaasi si loo helo xal ku saabsan barnaamijka nuclearka ee dowladda Iiraan iyo sidii loo ilaalin lahaa madaxbannaanideeda. xalka labaad ama wadada labaad waa in la sameeyaa buu yiri nidaam amni oo heer gobol ah oo dhammaan dhinacyadu ay ka qayb qaadanayaan, oo ay ku jirto xitaa Mareykanka, balse lagu saleeyo ixtiraamka madaxbannaanida dal kasta. waxaana uu aaminsan yahay in haddii dowladda Iiraan ay ku noolaato nabad iyo xiriir wanaagsan oo ay la leedahay dariskeeda, in gobolka uu jihaysan karayo xasilooni iyo horumar. ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Cumaan ayaa wuxuu ugu baaqay dalalka Khaliijka inay qaataan mowqif midaysan oo geesinimo leh, isla markaana si toos ah ugu sheegaan Mareykanka xaqiiqada jirta, halkii ay raaci lahaayeen siyaasad u dhow Israa'iil ama dadaallo ugu yaraan lagu caadiyeynayo xiriirka. waxaana uu muujiyey in waxa loo baahan yahay ay tahay in isbahaysi cusub oo militari aan la samaynin, balse ay tahay in istiraatiijiyad dhab ah lagu joojiyo dagaalka laguna badbaadiyo gobolka. maxay kula tahay adiga qaybta hoos aragtidaada ku reeb laysar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada. waad mahadsan tahay.